السلام عليكم صاحبي maanta waxaynu si wada jira ugu dalxiiseena mid kamid ah bandhigyada ugu waaweyn adduunka gaar ahaan bandhigyada agabyada beeraha sanadkaana waa sanadkii 20aad ee uu bandhigani dhacayo waana sanadkii labaad ee aan anigu ka qayb galayo si sanadkani waa uu iga duwan yahay sanadii hore waxaan ahaa ka qayb galay oo kaliya si sanadkani waxa kamid ahay ardadii loo soo xulay inay matalaan jaamacadda maadaama ay jaamacaddu qayb weyn ka ahayd qabanqaabiyaasha bandhiga waxayna sanadkani soo kordhisay jaamacadeena laba arin oo aad ii soo jiidatay aniga ahaan oo aan rabo inaan barnaamijkan idinku la wadaago sidoo kale waxaan aad u jeclaan lahaa inaan barnaamijkan gudihiisa idinku la wadaago labadii shay ee iigu cajiibsanaa bandhiga oo dhan si inta aan gudagelin barnaamijkeena waxaan aad u soo dhaweynayaa saaxiibadeena cusub ee ku soo biiraya channelkeena YouTube-ka iyo waliba page-keena Facebook-ka waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin inaad share gareysaan channelkeena si ay dhiirigelin inoogu noqoto una soo badino barnaamijyada xiisaha leh waxaana kun iyo kow jeer idin leenahay mar kale soo dhawaada saaxiibayaal dalka Turkiga waxa uu ka mid yahay 10 dal ee ugu sareeya wax soo saarka beeraha adduunka waxaana 20kii sano ee u dambeeyay uu sameeyay isbedel aad u weyn oo dhanka beeraha ah dakhliga ka soo gala wax soo saarka beeraha ee dalkan ayaa lagu qiyaasay sanadii 2002 24 bilyan oo dollar isagoona jabiyay rikoor aad u weyn korna u dhaafiyay wax soo saarkiisa 20 sano gudahood 56 bilyan sanadii 2022 waxa uu qorsheynayaa hadda in dakhliga ka soo gala wax soo saarka beeraha uu noqdo sanada 2030 113 bilyan oo dollar taa oo ka dhigan in 2050 uu wax soo saarkiisa kor u dhaafi doono 273 bilyan oo dollar haddaba gobolka uu bandhigani ka dhacayay 5 Maarso ilaa 9 Maarso ee sanadani waxa uu ahaa gobolka Konya waana gobolka ugu horeeyay wax soo saarka beeraha dalka Turkiga oo dhan gaar ahaan dalagyada qamadiga digirta karootada shaciirka baradhada gabaldayaha mushroomka ukunta digaaga caanaha iyo waxyaabaha kala duwan ee caanaha laga sameeyo bandhigani waxa ka soo qayb galay sanadani shirkado gaaraya 429 shirkadood kana socda 20 wadan oo kala duwan sidoo kale waxa ka soo qayb galay soo boqodayaal isugu jira ganacsadayaal aqoon-yahano turjumaano iyo waliba kuwa hal abuurdoon ah oo ka kala yimid 120 wadan oo kala duwan goobta uu bandhigani ka dhacayay ayaa badkeedu ahaa 96,000 oo mitir isku wareeg ah kana kooban 6 hool oo aad u waaweyn ujeedada ugu weyn ee bandhigani waxa uu ahaa in hal goob lagu wada kulansiiyo shirkadaha ugu horeeya agabyada loo isticmaalo wax soo saarka beeraha iyo beeraleyda adduunka oo iyana u baahan inay sare u qaadaan wax soo saarka beeraha si ay qayb weyn uga qaataan sugnaanta cunnada adduunka ayna u wajahaan isbedelka cimilada iyo caqabadaha soo food saara xilliyada ay shaqadooda ku jiraan agabyadii lagu soo bandhigay goobtani waxa kamid ah mashiino loogu talagalay aragadinta iyo dhul diyaarinta kuwa ka qayb qaata abuurka cusduubayaasha kuwa loo isticmaalo buufinta beeraha iyo waliba kuwa kala saara misana kala dhambala haraadiga iyo dalagyada waxa jirta laba mashiin oo aad ii soo jiita aniga ahaan oo aan rabo inaan idin la wadaago si inta aan gudagelin soo gudbinta labadaasi mashiin waxaan rabaa inaan idin la wadaago laba program oo jaamacadeenu soo kordhisay oo aad ii soo jiitay oo aan kula talin lahaa in jaamacadaha dalkeena kaga daydaan si uu sare ugu kaco wax soo saarkeena programka koowaad waxa loo yaqaanaa Hello Beeraley waana barnaamij isku xirayo beeraleyda iyo aqoon-yahanada beeraha oo kolka ay caqabadi soo wajahdo beeraleyda waxa ugu horeeya ay u baahan yihiin waa inay fahmaan caqabadaasi waxa ay tahay iyo sida ay ku xalin karaan taana waxa ka saacidi karo oo kaliya qof aqoon-yahan ah haddaba Hello Beeraley waxa uu fududeynayaa inay beeraleyda talo iyo tusaalaba ka qaataan aqoon-yahanada ay sida gaarka u khusayso dhibaatada ay kolka ka cabanayaan oo tusaale ahaan haddii uu ka cabanayo qofka beeraleyga ah cudur ku dhacay beertiisa waxa lagu xirayaa professor ku takhasusay cudurrada ama haddii uu ka cabanayo dhibaato ka haysato carrada iyo nafaqo daro waxa lagu xirayaa professor shaqadiisa oo dhanba ay tahay inuu baaro carrada iyo nafaqooyinkeeda waxaana programkani daah laga qaaday 2021 si waxa uu si fiican u shaqeeyay sanadii la soo dhaafay iyo kan aynu haatan ku jirno waxaana madax ka ah programkani wiilkan dhalinyarada ah laguna magacaabo Xasan Arisoy waxaanu yiri isagoo ka hadlayay programkani kolkii hore waxaynu u sameeynay inaynu isku xirno beeraleyda gobolka Konya iyo professoradeena si haatan waxa nagala soo wacaa gobolada dalka oo dhan
haddaba barnaamijkii ahaa mid taleefanka khadka ah la isugu xirayo beeraleydii aqoon-yahanka waxay jaamacaddu ka dhigtay mid weji ka weji ah oo bandhigan beeraleydii ka soo qayb galay waxay si toos ah ula kulmayeen aqoon-yahano meesha loogu diyaariyay iyagoona talo iyo tusaale siinayo deedna nambarada ka qoranayo sidoo kale waxay jaamacaddu meesha ku soo bandhigtay mashruuc muddo badan socday qayb weynna ka ah horumarinta cilmi baarisada la xiriira tiknoolajiyadda maadaama qarnigani ay tiknoolajiyaddu ku socoto xawaare xad dhaaf ah waxaana loo bixiyay adeegaasi Konya Technokent. haddaba intii aynu ku jirnay matalidda jaamacadda waxaa goobtii nagu soo booqday rektorka jaamacadda si uu u arko adeegyada Hello Beeraley iyo Technokent. muddo kadib waxaa isla goobtii noogu yimid laba maamul oo ka kala socday laba jaamacadood oo Pakistan ku yaalo sidoo kale waxaa isla goobtii noogu yimid gudoomiye ku-xigeenka degmada ee jaamacaddu ku taalo iyo madax kale oo kala duwan oo ka socota gobolka ujeedkooduna ahaa booqashada bandhigani aadka u weyn. haddaba haddii aynu u soo noqono labadii barnaamij ee aniga sida gaarka ah ii soo jiitay ee aan ku arkay bandhigani waxay kala ahaayeen barnaamijka koowaad oo ay soo bandhigtay shirkadda Bridgesoft ayaa ahaa in taraktarada loo isticmaalo buufinta coosaska lagu xiro aalado AI ah kuwaas oo buufinayo oo kaliya goobaha uu cooska ku yaalo iyadoo aynan suntu gaaraynin dalagyada. haddaba isticmaalidda barnaamijkaasi waxa uu faa'iido u leeyahay qofka beeraleyga ah oo sun badan uma baahanayo si uu cooska ugu buufiyo beertiisa taas oo ka dhigan inay u baaqanayso lacagtii uu sun badan ku soo iibsan lahaa. sidoo kale waxa uu qalabkani muhiim u yahay ilaalinta deegaanka oo suntu haddii ay gaarto meesha uu yoolku ahaa oo kaliya waxa yaraanaya inay carradu iyo biyuhu wasaqoobaan oo uu contamination meeshii ka dhaco. waxaa intaas sii dheer in macaamiisha isticmaalayaan dalagyo ka dhan ah chemicals misana tayo badan. barnaamijka labaad ee aad ii qanciyay waa diyaaradaha droniska ah ee loo isticmaalo nafaqasiinta iyo buufinta beeraha oo iyagana goobtii lagu soo bandhigay iyagoona meesha ka saaray diyaaradihii waaweynaa ee buufiska loo isticmaali jiray iyo haamihii dhabarka lagu qaadi jiray oo xitaa sababi jiray inay suntu gaarto jirka beeraleyda isagoona haatan awoodo qofka beeraleyga ah inuu buufiyo beertiisa isagoo geed hoostiisa isaga harsanayo. bandhigani waxa uu daha ka qaaday in tiknoolajiyaddu aysan ahayn taleefano iPhone ah kombiyuutar MacBook ah amaba ookiyaalaha cusub ee Apple oo kaliya si ay tiknoolajiyaddu geli karto goob waliba lana isticmaali karo goor waliba. ugu dambeynna haddii aad halkan nala soo gaartay la jirkaaga farxad ayay noo tahay saaxiib. inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim.